wuxuu leeyahay sheekh gabar uur xaaraan ah leh ma lagu meherin karaa ninkii uureeyey intaan lagu meherinse masruuf ma ku leedahay bismillaahir raxmaanir raxiim ninbaa shaydaanku wax u qurxiyey iyo gabadh way kala zinaysteen dabcan gabadha uur qaadis ma lahayn uur bay qaada qofka ugu horeeya ee gabadhaa nacaya waa ninka ka zinaysta qofka ugu horeeya ee inkirayana waa ninkii ka zinaysta qofka ka cararayana ee meesha ka tegayana waa ninkii arrintaas sameeyey xumaanta ay zinadu leedahay wey xumaanta ay zinadu leedahay wey soo ma arkaysid gabadh marka uur leh oo uurkaasi uusan sharci ku imanin horta lama meherin karo qof uur leh hadduu uurku sharci ahaan lahaa oo qofka xaaska ee uur kale miyaa la meherin karaa qof kale miyaa loo meherin karaa maya qof kaleo uur lahoo maxaanku dhahdaa zina uur kulana lama meherin karo markii jamhuurulculamaa la fiiriyo lama meherin karo meher ahaan laakiin waxaa hadda lagu qariyay isagii ma loo meherin karaa isagii ma loo meherin karaa intaan loo meherinin oo meher aan la isla gaadhin waxaa ka horeeya oo dadkuna ay qariyaanoo marna aysan ka hadlin hadday ka hadlaanna ay yar tahay waxaa la helay gabadh uur leh waxaa kaloo la hayaa ninkii uureeyey baa la hayaa ee sharcigu muxuu ka qabaa horta waa in la isweydiiy intaan meherkooda laga hadlin gabadhan uurka leh ee aan sharci ku uuroobin hadday guur hore soo martay sharciga maxaa ka yaalla in la rajmiyo oo la dilaa ka yaalla sidaa darteed meher uma yaalle hawsha meher iyo waxa iyada uma taalla markaase ilmahan markay umusho waa dilsuge qof dilsugaana dee meher uma yaallo haddii hadda ka hor guur aysan soo marinna ilmahan markay dejiso ay umusho waxaa sugaysa in la jaldiyo oo la jeedalo oo waxa weeye xaqii laga gooyo isaga maadaama la qirsan yahay oo la hayo oo dee lagaba fikirayo in lagu meheriyo oo la yaqaano oo qiraal baa meeshii yaalla haddii gabadha keliya la hayn lahaa sharcigeenna siduu wax u asturay ninkii uureeyey aaway lama dhahen laakiin hadda waxaa la hayaa ninkii ma lagu nikaaxin karaa dee ninka ma lagu nikaaxin kara waa nin la hayo weeye oo qirsan isaga hadduu guur hore soo maray waa dilsuge isagana meher uma yaallo hadduusan guur hore soo marinna waxa weeye ganaax suga weeye oo waa la jeldinayaayoo 100 jeedal baa lagu dhufanayaa waa la xanuujinayaa xadkaas marka laga oogo oo de xadka xaggee lagu oogayaa guriga aabbihii dhexdiisa miyaa la gelinayaayoo lagu taataabanaya maya magaalada dhan baa la isugu yeedhayaa waxaa la odhanayaa hebel iyo heblaa kala zinaystay zinadii baa laga oogayaa ee soo baxa intaasi markay dhammaato hadday israbaan hays guursadeen iyagay jirtaa laakiin hadda su'aasha waxaa ku jirta tii soomaalida oo ahayd yaan la soo hadal qaadin wixii dhacay baa ku jirta marka intaasaan ka xasuustaa sharciga in la marsiinayo baaraka allahu fiik